السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. malqaacad yar oo geedka dhagayaraha ah oo shiidan iyo koob caana isku dar kadibna cab meeshana ka saar mashaakil badan oo caafimaad darro ah insha Allah. geedka dhagayaruhu wuxuu ka mid yahay dhirta loo adeegsado noocyada kala duwan, waana geed Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dhigay mid manaafacaadkiisu uu badan yahay. geedkani wuxuu qani ku yahay faytamiinada kala ah faytamiin A, faytamiin C, faytamiin K iyo faytamiin E. sidoo kalena wuxuu qani ku yahay qaar ka mid ah maadooyinka aasaasiga ah sida calciumka, xadiidka, magnesiumka, fosfoorka iyo kuwo kaleba. dhinaca kalena caanaha ayaa iyaguna jidhkeenna ula waxtar badan. haddaba inaad isku darto malqaacad yar oo dhagayaro ah oo shiidan iyo koob caana kadibna aad cabto waxay jidhka u leeyihiin waxtarkan. kow, waxay xoojiyaan awoodda lafaha iyagoo u fiican korriinka lafaha kana hortaga xanuunada ku dhaca lafaha. laba, waxay u fiican yihiin caafimaad qabka beerka, kelyaha, waxaanay dawo ka yihiin rheumatismka iyo jilba xanuunka. saddex, waxay wanaajiyaan caafimaad qabka dheefshiidka waxaana yareeyaan xanuunka bawaasiirta. afar, waxay ilaa xad u fiican yihiin ruuxa dumar ah ee uurka leh, gaar ahaan xilliga ay ku jirta bilaha hore iyagoo dawo ka ah xanuunada ay dareemi karto hooyadu xilligaas. shan, waxay wanaajiyaan xasuusta maskaxda waxaanay hagaajiyaan caafimaadka ciridka iyo ilkaha waxaanay ka caawiyaan qofku inuu helo hurdo fiican. jidhkana waxay ka saaraan subagga saayidka. ugu dambaynna Ilaahay waxaynu weydiisanaynaa caafimaad taama. aad baad u mahadsantihiin. تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي العيوب.